howlgalkan oo isugu jiray burburinta dhismayaal si sharci darro ah looga dhistay wadooyinka degmada Hobyo qaarkood iyo dib u dayactir lagu sameeyay wadooyinka dhexmara degmadaasi ayaa waxa maamulka degmada oo kaashanaya ciidamada booliiska iyo kuwa daraawiishta Galmudug waxa ay ka bilaabeen degmada Hobyo ee gobolka Mudug. Howlgalkan oo soconaya muddo 4 maalmood ayaa intii uu socday waxa maamulka degmada Hobyo ay burburiyeen dhismayaal ka samaysnaa dhagax iyo goobo ganacsi kuwaas oo markii hore sida maamulku sheegay laga dhistay meelo aan sharci ahayn. Gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdullaahi Axmed Cali Cabdullaahi Faad ayaa warbaahinta qaranka uga warbixiyay howlgallada halkaas ay ka sameeyeen isla markaana ay ku burburiyeen guryo sharci darro looga dhistay sida uu sheegay meelo bulshada ka dhaxeeya. Sideedaba magaalo waxay magaalo ku tahay in bilicdeeda ay banaanka taalo. Hobyo oo hore loo hakraday waxaan go'aan ku gaarnay inay Hobyo noqoto hooy quruxdiisa adduunka laga daawado. Sababta aan u yeelin waxay tahay magaalada waxay noqotay magaalo in dekad laga dhisay qorsheedu yahay magaalo dalxiis ah magaalo manaafacaad kala duwan ama resource kala duwan leh. marka mar hadii magaalada ay balaaranayso dadkuna ay rabaan inay soo degaan magaalada waxa xaq u ah in bilicdeeda wax ka bedelno inta ay balaaran oo aysan faraha ka bixin aan u sameeyno system magaalo sharciga dalka u yaala wuxuu yahay in qofku uu soo ku xadgudbin shuruucda la soo saaray amarada la soo saaray qofkii ku xadgudba waa xirayna talaabo laga qaaday sababta talaabo laga qaaday in la xaqiijiyo in sharciga hirgalo. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug gaashaan la sare Maxamed Nuur Cali Gadaar oo isna la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in sharciga lala tigsan doono cid kasta oo ka hortimaada amarka ka soo baxay maamulka. waan arkay dad badan oo ka buuqaya bilicda magaalada inay diidan yihiin waxaan nooga qorsheysan talaabada sharcigu uu ka qabo inaan nina looga heebeysanin xilku doonaba dalka ka hayo cid sharciga ka weynana ma jirto qofka isku dayay inuu ka hor yimaado awaamirta ka soo baxday madaxda Galmudug ama heer gobol ha noqoto ama heer degmo ha noqotee cid ka hor imaan kartaa kulay anigu inay jirto ma qabo cidda isku dayday inay ka hor timaadana waxa sharcigu ka qabo ayuu mudanayaa. Kale qaar ka mid ah shacabka degmada oo aan la dhax qaaday mikrofoonka warbaahinta qaranka ayaa soo dhaweeyay dib u dayactirka wadooyinka iyo burburinta dhismayaasha sharci darrada ee maamulku ka wado degmadaasi. anigu waa ku raacsanahay in wadankan dhismo qashinka jidadka iyo dhulka noo furo oo ay yeelato qof walba 20 mitir oo qaata oo fiyaalo u noqdo oo ku ganacsanayaan waa la burburiyay qofkii koowdii bishaan aanu qaaday jingadaha la qaaday koowdii bisha ilaa 20 ka malin koowdii bisha qofkii koobaad oo jingadu deganaa fujiyay baan guriga shalay geedi baa ku jira guriga degan tahay waa la burburiyay si warata ka deganaana irida laga xiro. Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalkacyo.